kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ethiopia oo xiisad ay ka taagan tahay magaalada Addis Ababa oo xalay lagu dilay taliyihii ciidanka qalabka sida halka gobolka Amxaaradana uu ka dhacay afgambi dhicisoobay oo lagu dilay madaxweynaha gobolka Amxaarada iyo la taliyihiisii doorasho ku celis ah oo muhiim u ah xisbiga madaxweyne Erdogan oo maanta ka dhacaysa magaalada Istanbul wararka ciyaaraha qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa aan ku bilownay dalka Ethiopia xiisad ayaa ka taagan kadib markii xalay la dilay taliyihii ciidanka qalabka siday General Siare Makanon saacado yar kadib markii uu gobolka Amxaarada ka dhacay isku day afgambi oo lagu dilay madaxweynihii ismaamulka Amxaarada dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in taliyihii ciidanka qalabka sida Siare Makanon xalay lagu dilay gudaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi afayeenka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa maanta sheegtay in General Makanon iyo general kale oo howlgab ahaa uu guriga taliyaha ciidanka qalabka sida ku dhex dilay askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha magaalada Bahirdar ee caasimadda gobolka Amxaarada waxa ka dhacay afgambi ay dawladdu ku sheegtay inuu dhicisoobay waxaana lagu dilay madaxweynihii ismaamulka gobolkaasi Ambecho Makanon iyo la taliyihiisii xafiiska Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa xaqiijiyay in dilka madaxweynihii maamulka Amxaarada uu qayb ka ahaa isku day afgambi oo uu ka dambeeyo madaxa amniga ee gobolka Amxaarada General Asemno Tisege ciidamada Ethiopia ayaa sheegay inay gacanta ku dhigaan gobolka Amxaarada kadib markii uu fashilmay afgambiga lagu dilay madaxweynaha Xasan Ibrahim taliyaha ciidanka sirdoonka Ethiopia ayaa shacabka dalkaasi la hadlay isaga oo ugu baaqay inay isdajiyaan waxa uu sheegay in dhacdadii ka dhacday gobolka Amxaarada ay ahayd mid ka dhacday Ethiopia oo dhan kuwii ka dambeeyana la soo qaban doono ciidanka Ethiopia ayaa sheegay inay Addis Ababa ku xireen askarigii dilay taliyihii ciidanka qalabka sida laakiin sida warbaahintu ay ku waramayso waxaana wali la xirin ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo isku dayga afgambi waa General Asemno Tisege dadka ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa maanta dib ugu laabtay goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada 3 bilood kadib markii doorashadii ka dhacday dalkaasi 31 bishii March ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen guddiga doorashada doorashadii 3 bilood ka hor ka dhacday Istanbul ayaa waxa tiro aanan sidaas u badnayn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaradka ah ee JHP ninka la yiraahdo Ikram Imam Olu waxa uu ka guuleystay musharaxa xisbiga talada haya ee xisbiga AK Ra'iisul Wasaarihii hore bin Ali Yildirim magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn Turkiga sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga ayaa shacabkeeda oo lagu qiyaaso 16 milyan waxay saakay safaf dheer u galeen goobaha codbixinta saacada markii ay ahayd 8 subaxnimo waxaana la filayaa in doorashada ay xiranto galabta 5 xilliga Istanbul musharaxa xisbiga mucaaradka ka socda Ikram Imam Olu ayaa isaga oo wariyaasha la hadlayay waxyar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu gudoomiyaha ka soo noqday ee Beylikdüzü waxa uu sheegay in maanta ay shacabka Istanbul qaadan doonaan go'aanka ugu wanaagsan madaxweyne Erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu Istanbul ka degan yahay ee Üsküdar markale ku celiyay in doorashadii hore la musuqmaasuqay balse uu rajaynayo in qaladaadka dhacay aysan soo laaban mar kale caawa ayaa lagu wadaa in ay soo baxdo natiijada hordhaca ah marka la soo gabagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ay ka kooban tahay magaalada Istanbul dawlad goboleedka Garissa ee dalka Kenya ayaa waxa dhamaadka toddobaadkii hore lagu wareejiyay dhul ay muddo 5 sano ah deganaayeen dad qaxooti ah dhulkan ayaa waxa ku yaala isbitaal iyo xarumo waxbarasho oo ay gacanta ku haysay hay'adda UNHCR warbixintan waxa xiriyaha dhadhaab ka soo diray Cabdiwali Cabdi Maxamed halkan waa xirada Cambe House waxaa la xiray 31 bishii March ee sanadkii 2017 ku dhawaad 5 sano ayay hoy u ahayd qaxooti u badan Soomaali ka soo qaxay abaarihii ka jiray Soomaaliya waxaa la bilaabay sanadii 2011 waxayna dawladda Kenya si rasmi u aqoonsatay sanadii 2013 kaamkan dhismahan waxaa loo qorsheeyay in ay ku noolaadaan ku dhawaad 100,000 oo qof
balse waxaa ku noolayd qiyaas ahaan ilaa 20,000. laba sano oo aysan qaxooti iyo deegaan toona ahayn ayaa waxay hay-adda UNHCR ku wareejisay dowladda Kenya oo ay u saxiixeen xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka iyo xogayaha wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha. xeradan walow laga guuray haddana waxaa ku dhan dhammaan aas-aasiyaadkii aadanaha. waxay leedahay cusbitaal ay u dhammaystiran yihiin qalabkii loogu talagalay iyo goobo waxbarasho. waxay ka mid tahay waxyaalaha aan sugayna oo dhulkaanagii dhibkii soo gaaray inay magdhow noo ahaan lahayd ama dhaxal noo ahaan lahayd ayay ka mid tahay. marka haddii dowladda lagu soo celiyo dowladdana ay dadweynaha ku soo celiso faa'iido weyn ayaa ku jirto. dhulbeereed buu leeyahay, degaan buu leeyahay, dhulbeereed buu leeyahay, degaan buu leeyahay, meelo badan oo laga faa'iidaysto ayuu leeyahay. haddii ilaahay yidhaahdo in laga faa'iidaysto ayaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo si nabada gacantaanada ay dowladda ugu soo wareejiso. xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Faafi ayaan wax ka weydiiyey xiritaanka xeryahan dowladda lagu wareejiyey. marka waxaa la go'aansaday dowlad ahaan maartay xorooyin qaxootiga in la soo yareeyo waqtigooda tartiibna dadka la celiyo. qofkana asaga uu raalli ka yahay mise iskiisa uu noqdo asagoo maartay la qasbin waddanka isku laabto. saas awgeed ay kaliftay in xorooyinka la soo gabagabeeyo. maanta xukuumadda waxaa la wareegaynaa dowladda Kenya waxay la wareegaysaa Camp Coast, waxay la wareegaysaa Ifo Camp, waxaa la wareejinaa national governmentiga, kadibna county government la wareejinaya. county governmentiga waa dowlad goboleedka Garissa County. dhanka kale wuxuu ii sheegay sababaha loo xiray in ay ka mid tahay xaaladaha amni ee gobolka ka jira si aan qaxootiga loogu soo dhex dhuumanin. amni darra oo maartay Kenya iyo Soomaaliya maadaama xuduudeena xuduud aad weyn la leeyahay Soomaaliya deegaankaanaga iskuulo way xiran yihiin, caafimaadku way xiran yihiin, biraha maartay telefoonada waa la jibiyaa. waxa dhibka sameynaya waa qoloyin Soomaaliya ka imaaday. qaxootiga kulli ma aha, waa dad yar oo maartay tuuga ah amse al-shabaab ka socdaan oo dhibkaas ku haya waddankaanaga. marka waxaa la go'aansaday dowlad ahaan maartay xorooyin qaxootiga in la soo yareeyo waqtigooda tartiibna dadka la celiyo. dhanka kale dowladda ismaamulka Garissa oo lagu wareejiyay labadan xero maxaa uga qorshaysan? waxaan diyaar u nahay sidaan ula wareegna maanta wad arkaysan aan diyaar u nahay inaan si alla sida ugu muhiimsan aan uga faa'iideysano assetska meesha ku yaalaan oo maanta aan la wareegnay. isbitaal haday tahay dhakhaatiirta la rabo aan soo dirno, hadduu yahay iskuul dadkii agagaarka degnaa carruurtooda iskuulka ay keensadaan, boholla hadday yihiin ama hala cabo ama beeraha lagu abuurto sida arkaysaad ifotuwo kale inaan ka samayno Camp Coastna. dadka ayaga ee annaga wax alla waxaan ugu baahanahay inaan uga faa'iideysano serviceska ama assetska meesha ku yaalaan inaan sameynayno haddaan nahay dowlad goboleedka Garissa County oo aan xaqiijinayno ama ballan qaadayno in ay isbitaalkaas iyo biyaha bohollada ayaga ay halaabi doono ay noqon waayaan oo ay noqdaan wax laga faa'iideysan waayo insha Allah ta'ala. si kastaba haatee dhulkan baaxadda leh ay u dhammaystiran yihiin waxyaabihii uu qof kasta u baahnaa ayaa waxaa la filayaa in dowladdu ay keento qaabkii looga manaafacaadi lahaa. cabdiweli cabdi maxamed, VOA, Dadaab. ugu dambeyntiina dumarka Sacuudiga ayaa xusaya sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii ay boqortooyada u ogolaatay in ay baabuurta kaxeyn karaan. in dumarku baabuur kaxeeyaan ayaa ahayd dambi wixii ka horeeyay 24kii bishii Juun ee sanadkii hore. in dumarku baabuur kaxeeyaan ayaa ahayd dambi wixii ka horeeyay 24kii bishii Juun ee sanadkii hore. wadaadada Sacuudiga ayaa sanado badan ku celcelinayay in dumarka ay baabuur kaxeeyaan ay horseedi doonto isdhaxgal ay sameeyaan ragga iyo dumarka. kumanaan kun oo dumar ah ayaa ka faa'iideystay fasax loogu ogolaaday in ay baabuur kaxeeyaan iyaga oo dareemay in ay ka xoroobeen ku tiirsanaanta darawaliinta ragga ah iyo waliba kuwa qaraabada la ah. baabuurta loo fasaxay dumarka ayaa qayb ka ah isbedel uu wado Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada oo isagu doonaya in uu wax ka bedelo qaabka ay boqortooyada muxaafidka ahi ay kula dhaqanto dumarka. ilaa 3 milyan oo dumar ah ayaa la filayaa in laga bilaabo sanadka dambe 2020 ay helaan shatiga ama laysanka baabuur wadista. wararka kale ee ciyaaraha caalamkana waxaa inoo haya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qubanaha maanta. waddanka Japan haddii aan ku bilaabo goor hore oo maanta ahayd waxaa halkaasi shir jaraa'id ku qabtay
ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka ee waddanka Spain Fernando Torres oo sheegay in bisha Agost 23 uu soo afjari doono maalmihiisii ciyaaraha kubadda cagta. ciyaaryahankan oo muddo 18 sano ah kooxo iyo qarankiisaba u soo kala ciyaaray ayaa waxa uu sheegay in haatan jirkiisu uu diidayo inuu ciyaaraha sii wado. ciyaaryahankan oo 35 jir ayaa waxa uu ku soo caan baxay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid kahor intii aanu u soo wareegin kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halkaas oo mucjisada ciyaarada ciyaaryahankan ay dunida uga warhashay. maalmihii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaaryahankan waxuu isfaham wanaagsan la dhex maray ciyaaryahanka kabtanka u ahaa kooxdaasi Steven G. waxauna shirkiisa jiraa'id ku sheegay ciyaaryahankii dunida ugu wanaagsanaa ee uu la ciyaaro inuu ahaa Steven Gerrard oo ku tilmaamay mid dhammaystiray ciyaartiisa kubadda cagta. Fernando Torres ayaa waxa uu xulka qaranka Spain muddadii u ciyaarayay ku guulaystay koobab aanay qarankaasi hore ugu guulaysan. waxaa ugu mudan in uu qarankaasi u qaaday koobka kubadda cagta adduunka sanadkii 2010. waxa uu ka mid ahaa xidigihii Spain ee dunida ka yaabsaday sanadkii 2008 iyo 2012kiina waxauu isla qaranka Spain ugu guulaystay koobka qaramada ee qaaradda Yurub. kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo Liverpool ka soo iibsatana waxauu ciyaaryahankani la qaaday koobka qaaradda Yurub ee Champions League oo markii ugu horreysay kooxdu ay ku guulaystay. waxaa lagu xusuustaa goolkii uu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo lagu tilmaamay inuu yahay goolkii uu ku soo guday lacagtii 50 milyan ahayd ay Chelsea kaga soo iibsatay kooxda Liverpool. inkastoo sidii kooxda Liverpool ugu ciyaaray kooxdan aan ugu ciyaar haddana koob badan ayuu kula guulaystay. sidoo kale koobka Europa League ayuu 2 mar qaaday ciyaaryahankani, marna Chelsea marna kooxdiisa Atletico Madrid. koobka FA Cup-kana Chelsea ayuu la qaaday. Fernando Torres ayaa waxaa lagu xusuusan doonaa inuu ka mid ahaa xidigihii sida wanaagsan ugu soo ciyaaray qarankiisa. maalmihii ciyaarayay kooxda Atletico Madrid 111 gool ayuu dhaliyay, Liverpool 81 gool, Chelsea 45 gool, AC Milan uu amaah kula joogayna 1 gool, qarankiisana 60 gool ayuu u saxiixay. haatanna Copa America iyo kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay. xulka qaranka ee Brazil ayaa ka soo gudbay gruubkaasi kadib markii ay 5 gool iyo waxba xulka qaranka ee Peru ay kaga badiyeen. Venezuelana waxa ay 3 gool iyo 1 ku dhufatay xulka qaranka ee Bolivia. dhinaca iyo koobka kubadda cagta dunida ee hablahana habeenkii xalay ahaa xulka qaranka Jarmalka ayaa 3 gool iyo eber Nigeria kaga badiyay Norwayna waxa ay 1-1 bareejaha la galeen xulka qaranka ee Australia. dhinaca iyo koobka qaramada Afrika haddii aan ajaleecana habeenkii xalay ahaa xulka qaranka Uganda ayaa waxay ku durduriyeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga oo Congo oo 2 gool iyo waxba ayay kaga guulaysteen. xulka qaranka ee Nigeria waxa ay 1 gool oo dirqi ah kaga baxsadeen xulka qaranka ee Burundi, halka Guinea iyo Madagascar oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ciyaarana ay 2 gool ku kala baxeen. daawadayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo. intaa ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii qubanaha maanta. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.